maanta oo ay bishu tahay 27 Oktoobar sanadka 2022 anigoo gudanaya waajibka dastuuriga ah qodobkiisa 55 farqadiisa koobaad mathalayana wasaaradda maaliyadda waxaan hor keenay golaha wasiirada miisaaniyadda sanadka soo socda 2023 miisaaniyadda waxa saameyn ku leh duruufo fara badan oo ka jira caalamka iyo kuwa gobolka ku kooban iyo kuwa innaka inoo gaaraba waxay miisaaniyaddu ka badan tahay miisaaniyaddii kal hore golahan laga ansixiyey 5% ay ka badan tahay waa miisaaniyadda dowladda dhexe laakiin marka lagu daro miisaaniyadaha dowladda hoose iyo miisaaniyadaha hay'adaha madaxa bannaan iyo mashaariicda laynaga caawiyo waxay noqonaysaa miisaaniyaddaasi waxay ka badnaanaysaa miisaaniyaddii kal hore 4%. xagga kharashka waxaynu mudnaanta siinay sanadkan miisaaniyadda cusub amniga sidii awalba caadada inoo ahaan jirtay waxay noo raaca doorashooyinka ayaa noo raaca biyaha deegaanka wax soo saarka ictiraafka iyo waxbarashada intuba mudnaantooda ayaa laga siiyey miisaaniyaddii haddana wax yar ka yidhaahdo arrinka doorashooyinka iyo miisaaniyadda loogu talagalay sanadkan miisaaniyadda waxaa ku jira doorashooyinka 5 milyan baa ku jira oo dollar sanadka soo socdana waxaan u qoondaynay u gelinay 10 milyan baan u qoondaynay waa 15 milyan kaasi aan doonayno inaynu ku kafargarayno ama ku qarash garayno amba inay naga daboolaan doorashooyinka axsaabta iyo doorashada madaxweynaha laakiin dee 15 inaguma filla tii isku sidkanayd ee kal hore waxay nagaga baxay qiyaastii kharashaan ka yareen 20 milyan wixii markaa baaqiyay naga soo raacay doorashooyinka aynu qoondaysanay amba qorshaysanay sanadka soo socda waxaynu marti uga nahay saaxiibadeenna markii hore bay naga caawin jiray arrimaha dimuqraadiyadda geedi socodka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka waxaan aad ugu kalsoonahay siday Somaliland ba uga soo baxday kaalinteedii arrinka ku saabsan dimuqraadiyadda in hay'adaha caalamkuna uga soo bixi doonaan mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim shirka furitaankiisii waan ogeysanay wasiirka maaliyadda sidii uu soo qorsheeyay miisaaniyadda guud xoogana uu saaray doorashooyinka axsaabta iyo ta madaxweynuhu ku xigta 15 milyan waxaa soo koobaya kharashaadkii hore diiwaangelinta oo ilaa 5 milyan ay u qoondaysnayd oo haya oo iminka guddida doorashooyinka qaranka ay hayso waxay ku filan tahay diiwaangelinta lacagtaa diiwaangelintu waxaynu u qaadanaa doorashadu inay degdeg isu raacaan aynu ka baxsano kharash dambe oo soo noqnoqda markaa xisbiyada doorashadooda waxaa ku lifaaqan tii diiwaangelinta oo 5 milyan markaa waa 10 milyan xisbiyada kharashkooda sidoo kale ta madaxweynaha isla waxaan ku gelaynaa diiwaangelintan oo iyana 5 baa ku darsamaya 5 milyan ee kharashkeeda waa 10 milyan oo waxaan aynu isugu soo dhaweynaa doorashooyinka qolada diiwaangelinta hawsha arinaha ku xisaabtanto waxaanu dhimaynaa 10 milyan haddii doorashooyinka mid walba gaarkeeda diiwaangelin lagu qabto taasoo aan qaran ahaan qaadi karayn cidna aan inaga caawin karin baryaha markaa fikraddan waa ku amreynaa qolada wasaaradda iyo ciddii soo gudbisay waanu ka doodnay goluhu in badan uu ka wada hadlay waxay u muuqataa uguma hadnaqaya ku bogaadinaya goluhu inuu dhammaan isku raacay sanadkan mudnaanta waa in doorashada wax walba loo huraa nin waloo hadlayba nin waloo wasaaraddiisa eegada oo weliba wax laga jaray wixii hore haddana waxay dhammaan dhiirigeliyeen inaynu u jahaysano doorasho miisaaniyadana ugu talagalno wixii ka dhibanna u diyaargarowno xukuumad ahaana aynu qaadano majaraha doorashadii waa in degdeg lasu raaciyaa loo qabtaa markaa waxaan jeclaan lahaa dood way bedelo rag badan oo rayaalka duwad iyo hablaba way jireen in inta ogol miisaaniyadda in saa lagu sii daayo ay gacanta u taagto
waxaa fadhiya 12 golaha wasiirada xukuumadda maanta 12 way u codeeyeen miisaaniyadda in duubka saa ay tahay lagu ansixiyo iyadoo doorashada door bilayo cid kama aamusin cidina ma diidin aad iyo aad baa mahadsantihiin waxaan ku talagalaynaa iyo inay labadii doorasho tii xisbiyada iyo tii madaxweynaha noo qabtaan shacabka waxaan ka codsanaynaa dhammaantii in nabadgelyo doorashooyinka lagu galo in dadku jihada doorashada u diyaar garoobo xisbiyada mucaaradka inay diyaar garoobaan in dhammaan dadku ay galaan doorasho nabada oo salmi ah oo qof waliba codkiisa cidda uu doonayo uu siiyo walaaltinimo leh aan colaad lahayn wabillahi tawfiiq ciidanka qarankiyo amniga ciidanka qaranka